calanka.com wali waxaad la socotaan VOA Washington dhinaca kalena waxaa baraha internetyada la isla dhexmarayaa ama la isla wareegeysanayaa liis ay ku qoran yihiin magacyada dad la sheegay inay yihiin dadkii weerarkaasi geystay kuwaasoo al-shabaab ay beeniyeen in ay iyagu ka soo baxeen sidoo kale waxaa laga soo xigtay siyaasiyiinta reer Kenya ah in 2 ama 3 ka mid ah dadka weerarkaasi geystay ay haystaan dhalashada Mareykanka halka midna ay haysato dhalashada dalka Britain taasi oo aanan si madax bannaan wali loo xaqiijin karin haddaba waxaa la isweydiinayaa yaa ka dambeeya weerarka Sahre Cidla Nuur ayaa warbixintan noo soo koobaysa. warar lagu kalsoon yahay oo ka soo baxaya al-shabaab dhexdeeda ayaa idaacadda VOA-da u xaqiijiyey in weerarka ay geysteen dhalinyaro u badan Soomaali oo ay ku jiraan kuwa ka yimid dalka dibaddiisa. waxaa warku intaasi ku darayaa inay dhalinyaradaasi ay ku jireen xubnaha iskhilaafsanaayeen hogaamiyaha ururka al-shabaab Axmed Cabdi Godane oo iyagu doonayay in muddo ahba inay fuliyaan weerarro isqarxina. xubnahaasi ayaa la sheegay inay xidhiidh dowlo lahaayeen ajaaniibta Soomaaliya ku sugan ee la jooga ururka al-shabaab oo ku eedeeyey Axmed Cabdi Godane inuu ka gaabinayay inuu si buuxda u maalgeliyo weerarro laga geysto meelo dibadda ka ah dalka Soomaaliya. sababta uu Godane si buuxda ugu maalgelin waayay weerarradaasi ayaa lagu sheegay inay ahayd isaga oo ka shakisanaa xubnahaasi. warku wuxuu intaasi ku darayaa in mid ka mida ragga hogaaminayay weerarkaasi ka dhacay Westgate Mall ee magaalada Nairobi uu ahaa nin hadda ka hor uu xidhay hogaamiyaha al-shabaab Axmed Cabdi Godane oo shabaabka dhexdooda looga yaqaano Cumeer lana aaminsan yahay inuu ku noolaan jiray dalka Finland. wararka ay helaysa idaacadda VOA-da ayaa sheegaya inay u badan tahay in xubno kooban oo ka mida dadka weerarka geystay ay muddo qorsheynayeen fulinta weerarkaasi iyagoo markii qorshaha ay soo dhammaystireenna ay ku wargeliyeen ururka al-shabaab oo goor dambe maalgeliyey dhammaystirka howlgalka. waxaa kaloo ay sheegeen in xubnahani ay doonayeen in weerarro dhaqsaal laga geysto dibadda si loogu aargudo xubno ay ka mid ahaayeen Abu Uxud, Abu Ibraahim, Bilaal Birjaawi iyo rag kale oo shabaabka ka tirsanaa oo ku dhintay gacanta diyaaradaha aan duuliyuhu wadin. xubnahan ayaa la sheegay inuu khilaaf weyni u dhaxeeyey inay si aada isugu dhow yihiin Axmed Cabdi Godane haatana loo malaynayo inuu yahay ku-xigeenkiisa oo lagu magacaabo Maxamed Axmed Qooley loona yaqaano Mahad Karatay sidoo kalena loogu yeedho Odawaa. waxay ku eedeeyeen Mahad Karatay inuu necab yahay ajaaniibta iyo inuu sidoo kale diidanaa inay xubnahaasi ajaaniibta ahi weerar waaweyn ay ka fuliyaan wadamada Kenya iyo Itoobiya oo uu ka soo horjeestay in mucaskar amaba tababar gaara loo furo xubno doonayay inay weerarro ka fuliyaan wadamadaasi. waxaa la sheegayaa in xubno ka mida muhaajiriinta oo isugu jira ajaaniib iyo xubno Soomaaliya oo la fahantoodu ka soo haajiray wadamo dibadda ah inay is-abaabuleen kadibna ay galeen waddanka Kenya. wararku waxaa kaloo ay tibaaxayaan ka sokow in weerarkani uu calaamad u yahay in al-shabaab ay qorshaysan karto weerarro ballaadhan in haddana weerarkani uu hogaamiyaha al-shabaab uu u yahay dacaayad ballaadhan marka la eego al-qaacida dhexdeeda. waxaanay wararku sheegayaan in hogaamiyaha al-shabaab ay weeraro dhinaca aaladaha warbaahinta ijtimaaciga ay ku hayeen xubno ka mida ururkaasi al-shabaab iyo al-qaacida oo ku eedeynayay inaanu si ku filan u caalamiyeyn dagaalka uu ururku ku jiro. xubnaha dacaayadan ku hayay hogaamiyaha al-shabaab waxa ugu caansanaa Abu Mansuur al-Amriki oo dhowaanta ay dileen ururka al-shabaab. waxaa kaloo ku jira xubno jihaadiyiin ah oo u isticmaalayay magacyo la yaqaano shabakadaha ay bulshadu ku xidhiidho oo ay ka mid yihiin Sayful Cadli, Abu Haajir, Caynu Soomaal, Abu Jubayr, Dubaaxa iyo Xaqdoon. waxaana la sheegay in xubnahaasi ay ku guulaysteen inay dhaawacaan sumcadda Axmed Cabdi Godane ee al-qaacida iyagoo adeegsanaya mandiqaadyada jihaadiga ah. waxay ku eedeynayeen in Godane uu ka leexday diinta iyo inuu laayo Soomaalida keliya isla markaasina uu ka cagajiidayo in dagaalka loo dhaadhiciyo Kenya iyo Itoobiya. waxaa kaloo la sheegay in xubnahaasi ajaaniibtu ay dhibaato kala kulmeen gacanta Axmed Cabdi Godane kadib markii ay ku fureen dacaayado qaar iyaga ka midihina ay waddanka isaga carareen maadaama oo aanay ka dhalan qabiilo difaaci kara. waxaa kaloo la tilmaamay in sheegashada ururka al-shabaab ee weerarkan abaabulkiisa iyo inuu fulay ay guul weyn u tahay hogaamiyaha al-shabaab marka la eego al-qaacida dhexdeeda. sababtoo ah waxay taasi yaraynaysaa dhaleecaynta uga imanaysa dhinaca al-qaacida iyo jihaadiyiinta caalamiga
waxaanay ka dejinaysaa culays badan waxaanay u suurtogelinaysaa inuu helo taageero. wararka laga helaya al-shabaab dhexdeeda ayaa muujinaya in weerarkan ay geysteen xubno caalami ah oo naflacaari ah oo aan rajo ka qabin inay dib ugu laabtaan waddamada ay ku noolaan jireen amaba ay u dhasheen. waxaa kaloo la sheegay in diyaarinta qorshahan kadib uu axmed cabdigodane maalgeliyey uuna ka codsaday in lala socodsiiyo weerarka, waxaana sheegeen in xidhiidhka xubnaha weerarka geysta iyo al-shabaab aanu si weyn u adkayn, waxaana taasi daliil u ah xubnahan oo markii weerarku dhacay soo wacay dad ay ehelo yihiin iyo warbaahinta al-shabaab iyagoo doonayay in lagu xidho warbaahinta dunida. al-shabaab ayaa kadib la wareegtay maamulka dhinaca warbaahinta ee ay raggaasi doonayeen, waxaanay wararku sheegayaan in dadka ku eedeeyey master godane inuu dagaalka ku koobay soomaaliya oo keliya inuu ka mid ahaa cumeer oo murankaasi darteed xilli kooban loo xidhay sanadkii lasoo dhaafay. cumeer waxa uu ka mid yahay ragga abaabulka ku lugta lahaa, waxaana la aaminsan yahay in howlgalka uu hogaaminayo isaga iyo xubin kale oo ka mida kooxda. waxaa kaloo ay wararku intaasi ku darayaan in kooxda weerarka geysatay uu ka mid yahay nin lagu magacaabo Khadaab. Sahre Cidla Nuur ayaa warbixintaasi soo koobaysay, waxaadna kala socoteen VOA Washington. calanka.com